هي حقيقة waxaa is leedahay caanaha xamar aad ku cabaysid kiimika miya kiimika maalin isdheys caanaha cabaysaa kuwana waxa way dhadhankooda aad u dareemaysaa حقيقة كوا حمر كيميكال سو قبتها kiimika lagu siyaado malaysa أنا بلنت عبد اليو xaqiiqda waa kuwana caanaad saafi u ah waaye ما شاء الله yaqaaniin dadka halkan jooga ولا عانا برما ما شاء الله aad iyo aad الله saafi u yihiin ولا عانا عجيبة hada caanahan aad arkaysin caana lo waaye lo ما شاء الله الله waaye aad iyo aad u carfayaan u fiican yihiin والله عانا عرف بدم عرفت هل كان يكسو عرفي حقيقة laakiin xamar markaad joogtayna wax carfayaan inay wax dhurayaan intaba ma dareemi kartid أنا وحمرني إنكارت كل عاد عانا وكحمر مينو كنان ma laga helayo waa farsamo فرسما بسنس saasaa يقلع loo fahmay ha ها kulley waa saas هذا عبد اليو مركي هاد هذه هاد مال ما شاء الله معلم واتهاي بوحو سكول بaa joogtaa ardayda bal ka waran midka baadiyaha ku soo dhashay iyo gobolada ku soo dhashay midka magaalada ku dhashay keeba wax baris og labadooda waxbarashada waxay aad iyo aad ugu wanaagsan dadka gobolada ka yimid ajiib gobolada kala duwan ee Soomaaliya waa dadka aad iyo aad wax u barta mustaqbalka hogaamiyaasha noqda wax tarka u leh bulshadan boqolkiiba 90 iyaga waa ajiib waa 10 nadiif boqolkiiba 10 nadiif laga heli karaa magaalada inta badan haye laakiin dadka wax galka u ah bulshada laf dhabarka u ah hogaamiyaasha u ah madaxda u ah meel walba ka muuqda inta badan dadka gobolada ku soo koray u badan yihiin ha gobolada kala duwan ee Soomaaliya dhamaan xataa waxbarashada aad iyo aad heer fiican ka gaar ajiib laakiin waxa way kuwa magaalada inta badan waqtigooda waa dayacaan meeshii la rabay kuma bixiyaan ama wanaaga waxyaabaha tilmaamay ama qofka inta badan in uu noqdo active firfircoonaado ama fahamkiisu uu fiicnaado waxyaabahaas oo dhan kama shaqeeyaan waxyaabaha uu ku fiicnaan lahay ma aadaan meelo kale waqtiga ku dayacaan iyo waxaan maskaxda dilaayo okay telefoonada iyo waxaas ha aad u xun عبد اليو بعد كان بل كبرني وماشان كبرني هو runtii bacaadkan waa meelaan u xiisay oo aad iyo aad agteeda qiimo uga leh يعني ee ka mid ah deegaanka laanta buuro ما شاء الله deegaan weynaha laanta buuro gobolka shabeellada hoose ayaan joognaa ما شاء الله ee ka tirsan degmada afgooye deegaan ka tirsan waay عجيب marka waa deegaan qurux badan qadiimi ah dad ilbax ay degan yihiin ahlu diin ah ما شاء الله marka ma la soo koobi karo deegaanka ka waran adiga ma ku soo kortay mise oo maanta martiya ku taanaygo kale waan ku soo koray halkan quraankan ku bartay siyaarada maanta aan joogno heer macal ismaan marka ما شاء الله heer macal ismaan waa halka diinta aad iyo aad looga bartay quraanka kariimka ah sidaas oo kale diiniga ama ما شاء الله kitaabada عبد اليو adigoo yar halkan ma aragtay inaad joog jirtaa ii sheegtay marka bal ka waran bariga dareenkaaga maadaama reer xamar hadda aan noqotay niyo runtii aad aan ugu faraxsanahay inaan halkan imaado ku noolaado aan joogo sababtoo ah waa deegaanka aan ku quraan bartay oo aan muddo joogay wuxuu ku caan yahay deegaankan waxyaabaha uu deegaanka laanta buuro ku caan yahay waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay dhul beero ah jib oo aseentooyin ah ama carro madow ah sidaas oo kale wuxuu leeyahay oo dalagyada noocyada kala duwan ay ka baxaan ayu dalag ah ka baxo ما شاء الله galleyda masagada diirta salbukada sisinta yaanyada ayu nooc deegaan uu ka baxo dhul beereed aad iyo aad u wanaagsan la waayo laakiin saa aragno sidaas oo kalena leh dhul deex ah oo caracad ah oo aad u qurux badan sida halkan hadda aan fadhino kale anaga hadda waxaan aragnaa laanta buuro marka la yiraahdo dhulkan dhul ma aragta caracada inuu yahay marka laanta buuro ma caracad iyo cara madow leh labadaba ma leedahay si fiican labadaba way leedahay aye deegaanka hadda meesha aan joogno waa eriyada caracadka ahaa oo nadiifka ahaa ay bulshadu inteeda badan ay degan tahay ما شاء الله sidoo kale waxaa jira dhul carro madow ah oo saaran oo beero laga tacbo beeraley ah macnaha dadka halkan degan dhulka ay beeraha ka tacbadaan dhulkaas oo ilaa jiinka webiga gaaraya ama meel la yiraahdo Libson dhul la yiraahdo jiro
oo aad iyo aad tacabka ama beeraha ugu fiican dalagga noocyadiisa kala duwan oo dhan marka deegaan aad iyo aad muhiim u ah maanta joognaa saas waa adigana waad ka mid tahay dadka deegaankan runtii waxaan filayaa inaad aad iyo aad ugu faraxsantahay soo booqashada deegaanka wallahi ma sha Allah xaqiiqatan boqolkiiba boqol kaliya aniga meelaan arinta ka bilaabo Allah waaba ku dhex dhumaa laakiin adiga saa dareemayo waa caadi luuqa hadda ay keenay anoo halkaan aan fadhino waa geedkan quraca hoos galbeedkiisa aan fadhinaa hoos galbeed ali yiraahdo waa meel aad u qabow waa aragtaa ma sha Allah neecaw badan arad xitaa nadiif marwaxad iyo waxa soo baahan halkaan markaa joogto Abduliyow dhulkan nadiif oo waxaad qabtaa maaragtay dhul aan lagu shaqeyn inuu yahay dhulkan lagu ma socod miya dhul waa biyo wasaqi wax ma lagu soo daadin miya deegaan aad u weyn waaye marka bulshadu meelaha ay degan tahay oo guryaha ay ku yaalaan maahine hareeraha dhan waa dhul nadiif ah jaam kama jiro daahir ah oo meeshaad aragto aad ku dukan karto waliba adoon salli dhigan cimaamad dhigan sababtoo waa daahir dhul nadiif ah ma sha Allah oo hawadiisa aad u carfayso ma sha Allah inaad wax uriso oo sankaaga uu fiican yahay iyo in kale waxaad dareemi kartaaba markaad hawadan oo kale aad timaado ajiib xamar markaad joogto wax ku soo carfaayo ma jiraan wixii dhamaad waxna kuma soo carfaan waxna kuma soo uraan halka markaad joogto laakiin inuu dareenka uu fiican yahay dareemaysaa caraf aa kala garan karto ma sha Allah wallahi aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta ma aragtay halkan aan soo booqdo saaxiibkay aan walaalkay Cabdulle Xiri ee ugu soo dhaweeyay hadaan ma waa kana hadda waxa isla markiiba caanaan ugu la soo dhaweeyay caana dhaay ah saddexlahan oo dhaay ah ajiib oo runtii markaad dhedhemiso caanaha xamar aad ku dhedhemisay iyo caanaha halkan aad ku cabto aad iyo aad u kala dheeriyeen u kala fog yihiin xaqiiqatan ilmaha halkan ku koro iyo ilmaha xamar ku koro Cabdulle bal war naga sii farqi u dhaxay ma ahan isku muuqaal ma ahan saas waa isku faham ma ahan waa garta meel walba waa ka fiican yihiin ilmaha baadiya ama gobolada ku dhashay iyo kuwa magaalka ku dhashay aad u kala fiican yihiin xaqiiqatan adaa macallin ustaad maadada ama waxbarashada waxa soo dhan fahamka meel badan ay kala fiican yihiin kartida xataa saas waa wallahi waxaan aragnaa dad badan oo baadiyaha ka imaado waxbarashadooda aad iyo aad ay loo amaanay marka saas maad leedahay hadda dadka magaalada waa tusaale waxaa kuugu filan hoggaanka dalka oo dhan nin xamar ku dhashay wuu yar yahay hadduu jirana cajiib darajadu raba ha ahaayo saas ama ha soo maro totally 90% gobol ay ka wada imaadeen intooda badan oo waaba marka dadka waxtarta ah inta badan gobolada ay ka soo galaan magaalada marka ustaadi waxaa tiri dadka xamar 100% baadiyaha ka fiican aad tiri si fiican marka dhan kasta xagga waxbarashada iyo ama kartida ama dhaqdhaqaaqa ama waxtarka aan dhahnay Soomaa si fiican waxa daliil kuugu ah oo aan hadda ka hor rag saaxiibadeeya ka haya in ay dhaheen iyagoo tusaale arkaas ka soo qaadanay wiil koofuro oo guri koofuro ku dhashay iyo dib ceel abaaji ka yimid dib ceel abaaji waxa fiican dib ceel abaaji fiican ay dhaheen cajiib iyo wala jeeda xagga kartida iyo waxyaabo adiga dhinacaas ula jeedaan marka ragta sidaas dhaay jiro mar aan ka hayo wiil koofuro guri koofuro ku dhashay waxay ula jeedaan heer magaalka saas waa waxa ka fiican ay leeyihiin marka dib ceel abaaji saas waa يعني wiil koofuro wiil xamar ma aragtay dib ceel abaaji ka fiican العمر ورك هذيك أنا كسر جواب تال ربع العمر بدو أي فرصة أقول حريني أي قال لك أنا كسر جواب هذا بس أستاذ